wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac oo qaar ka mid ah warbaahinta dalka kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa si xeel dheer uga jawaabay hadallo ka soo yeedhay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ee Solja waxaana wasiir ku-xigeenku ka hadlay waajibaadka gudoomiyaha ururka suxufiyiinta isagoo oo xukuumadana ka difaacay eedaha gudoomiyaha ururkaasi uu hore u soo jeediyay wasiir ku-xigeenku waxa uu ku dheeraaday xilka ka saaran hay'adaha warbaahinta madaxa bannaan kuwa dawladda iyo ururada saxaafadda qaabilsanba gudashada waajibaadka qaran ee dalka gaar ahaan xilligan oo loo baahan yahay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo ka hortagga xanuunka COVID-19 oo dalka saameyn weyn ku yeeshay waxaana uu gardarro aanu xeerku banaynayn ku tilmaamay marin habaabinta bulshada iyo in ummadda loo soo bandhigo wax aan jirin Cabdinaasir Cumar Jaamac waxa uu gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Solja xasuusiyay in hanaanka uu u maray la xisaabtanka xukuumaddu aanu ahayn mid waafaqsan shaqadiisa maxamuud waa nin waayara ku ah hay'adaha warbaahinta hadiiba uu aad ugu holladay ama aad u jecel yahay inuu marar badan dhaliisha intan la eeg xooga aan ahayn mandate-kii hay'adda warbaahineed uu gacanta ku hayo waayo Solja hay'ad warbaahineed maaha laakiin waa urur u taagan inuu tayeeyo saxafiyiinta kala duwan badqabkoodana ilaaliyo hadduu u hollado markaa inuu marar badan sidaan u hadlo laba wadaba waa u furan tahay hay'adaha qaranka ee dastuurkeenu u jideeyay inay dawladda ilaaliyaan waxaa ka mid ah hay'adda golaha wakiilada ee sharciga waxaa ka mid ah saxaafadda madaxa bannaan waxaa ka mid ah xisaabta mucaaradka intaas oo dhan waa muraayadan ugu talagalay qaran ahaan dawladdu inay isku daawato oo dhaliilaheeda iyo wixii ka qariban ama ka khaldamay bilaadan baa dawladda maamulaya inay iska dhaxragto weey marka gudoomiyaha taladan siin lahaa waxa weeye saaxiibkay inaanu ururka aanu majar habaabin oo jihadiisana aanu ka leexinin inuu ama hay'adiisa warbaahineed oo khibradda iyo aqoonta uu lahaa dib ugu noqdo oo halkaas sidii uu investigation iyo arrimahan fara badan uu ka hadlayo baaris ugu sameyn lahaa waayo hay'adaha warbaahinta dalka ka jira waxay haystaan awood sharci inay baaris saxaafadeed ama ay baaris ku sameeyaan hay'adaha dawladda iyagoo xirfadooda aqoonada isticmaalay ay soo bandhigaan waxyaabaha ay isleeyihiin marka waxay u baahan tahay in ummadana loo soo bandhigo dawladana laga saxo marka gudoomiyaha kula talin lahaa inuu halkiisii isaga noqdo laba inuu xisaabta mucaaradka iskaga biiro wana weyn badan soo shaqeynay inuu halka malaa halkaana qoladaasina waa xisaabta mucaaradkuna waa sharciyad bay u haystaan dawladda inay dhaliilaan oo wixii darruna ay jecel yihiin in dawladda lagu saxana taasina waxaan isleeyahay waa muraayada labaad ee dalku isku daawanayo ururada bulshadana waxaa habboon guud ahaan inay waayo waa urur bulsho marka Solja laga hadlayo hay'ad dawladeedna maaha mid mucaaradna maaha iyagana waxaa habboon inay doorkooda shaqo ee sharciyadda inay qaataan dalku wuxuu ka kooban yahay hay'ado dawladeed oo kala duwan oo qaar kasta ay hayaan shaqooyin kala duwan dadka jamhuuriyadda Somaliland cid walba adeega gaarka ay u baahan tahay waxa ka mas'uula hay'ad gaar ah oo dawladdu iyo madaxweynaha qaranku uu xil saaray xaaladda iminka dawladda muhiimadda ugu weyn oo u taala waxa weeye waa sidii ummadda looga samata bixin lahaa xanuunkan COVID-19 geesta kala wasiir ku-xigeenku waxa uu waftiga xukuumadda ee ku sugan deegaanka Ceel Afweyn ku bogaadiyay qaabka daacadnimada iyo odaytinimada ah ee ay u maamuleen dejinta iyo soo afjaridda shaqooyinkii ka dhacay deegaanadaasi iyagana waxaan leeyahay ilaahay hawsha idin fudaydiyo juhdi badan baa geliseen gacan qabow iyo waayagnimo badan baad ku soo dabaasheen inaynu nabadgelyo waarta inaynu ka helno degmada Ceel Afweyn iyo agaarkeeda waxaan jeclahay halkan isagana inaan ku bogaadiyo oo shalay lagu soo dhaweeyay degmada Ceel Afweyn suldaanka deegaanka Suldaan Saciid Yuusuf waxaan leeyahay waa kugu hambalyeynaya Suldaan inaad raganimadu maanta waxay ku jirtaa runtii inaad qayb weyn ka qaadato sidii deegaankaaga iyo deegaanada ku dhowba nabadgelyo loogu soo dabaali lahaa aad iyo aad baan kugu hambalyeynaya Suldaan inaad deegaankii ku soo noqotay